oo maxaan ku raadayay kulan kale oo wanaagsan aan isugu imaanay waaye waa la socday shalay hawlihii maxaan ku raadayay meeshan ka socday iyo hadaladii iyo talooyinkii iyo warbixinadii laga soo jeedinayay oo dhan maantana dhalinyarada waa soo maray hal abuurka dhalinyaradu ay sameeyeen runtii wax aad iyo aad loogu farxo dhalinyaro qaarkood hadda jaamacadaha bilaabay oo simasaradii ugu horeeyay ku jira oo muxuu ahay already ay muuqato sida ay u fikirayaan iyo aqliga ay ku fikirayaan intuu la eg yahay simasarada daba markay gaaraanna aan rajaynayna in ay aad iyo aad meesha uga sii hormaraan adeegyada maanta dhalinyaradu inay qaban karto ku fakari karaan samayn karaan dhaqaaqayo oo socdo oo shaqeeyay يعني wax aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad loogu farxo waay waxaan rabaa dhalinyaro dalkeenu maanta dal kasta oo dunida jiraahay wuxuu uga baahi badan yahay hal abuurkaas uga baahi badan yahay wuxuu uga baahi badan yahay dalalka adduunka oo dhan hoggaanka leadershipkaas dhalinyarada cusub ayuu ugu baahi badan yahay shaqada dhalinyaradu qabteen jihada ay u jeesteen sida ay u fikirayaan runtii aad iyo aad ididiilo weyn dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego shalayna duruufaha adag markuu dalkeenu ku jiray dhalinyaray ahaayeen kuwii u istaagay maantana markale waxaan dhihi karaa runtii dhalinyaradu waxaad u istaagteen dalka in ay ka baxo duruufaha adag ee uu u gudbo meesha uu xaq u leeyahay oo ah hormuud inuu ka noqdo muxuu ahay adduunyada hore u socotay dad badani wali hoos ayay noo fiirinayaan ayaga oo aqligooda ku salaynayo wixii la soo dhaafay pastigii hore iyo sanadii hore la soo dhaafay oo aan arkaynin waxa maanta socda iyo wanaagga maanta socda iyo dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay sameynayaan si uun aan u arkaynin meeshii shalay wali joogo waxaan leenahay shalay ka imaada ummadda Soomaaliyeed waa dhaqaaqday waa guurtay wadadii horumarka iyo barwaaqada iyo wanaagga iyo dawladnimada u guurtay hayaankaas ayaan ku jirnaa kaynaankaasna mar dhow wuxuu gaarayaa meeshii aan la jeclayn ama aan ku haminayn waxqabadka innovationiska ama hal abuurka wax la taaban kara ayaa maanta مثال أهيد كسبان نكتين هديت هاي تكنولوجيا دا هديت هاي قرالة دي هالأمور كفكر كأه هديت هاي محنكر هذا دينا عبارها دينا والبا وحد كسو قادين أتصبان نكتين هولو مثالي أو لقبتي أو ريال معها بوك ورقة قرب اسمها ريال روبوت دقاقية باريه وتعبان وجيده وياله qoraaladii buugaagtii oo qoran applicationskii online ku shaqeynayay oo shaqeynaya oo yaala waxbarashadii oo online noqotay oo online loogu gudbinayo dhalinyaradii aan meelaha qaar ama fursadaha iskuul inay fariistaan aan helin ama iskuulka waqtigii uu u baahnaayeen aanu ku simeynin in ay sii socdaan waxay suurto gelinay waxbarashadaasi in qofku tii formalkeeda sanadkii koobaad uu dhameeyay kii labaad kii shanaad kii tobanaad kii koob daba joogi lahay awoodiisu inuu ku muujiyo muddo gaaban oo waqtiga uu beeqaansado oo ku hormaro ayay sahlay in ay waxbarashada online waxaad soo aragnay banaanka oo nologu soo bandhigay telemedicine oo ayadana sidoo kale qofkii meel fog joogaahi la kaalmeynaya la caawinayo daawo loo qorayo la wareysanayo maxaa laga qaadayo baaritaan lagu sameeyo ayadana waxaasoo dhamina ay yihiin ayadoo adduunka ay ka jiraan shirkado waaweyn oo waxaas ka shaqeeya adduunka ay jiraan laakiin kuweenaani dhadhan gaar ayay leeyihiin laana annagaa samaysanay dhalinyaradeenna samaysay robotkeenu inaanu qurxanayn oo dhalaalaynina laga yaabaa laakiin mid kastoo dhalaalayo adduunyada ay samaysatay kana noogana qurux badan noogana maxaan ku iraahdaa macaan badan wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay sameeyeen aad iyo aad runtii wiilal iyo gabdhaba
ماشي سيجارة وحنوسي هم بلينا قبلها الصوماليات ورنتي موجي كرتي ديري يوم حنكو هذا هل أبور ديري marka dhalinyaro waa sidaas waxa aan weli la taaba karin hogaankii leadershipkii aqoonta xaggeeda ahay waad muujiseen kambaniyo cusub la aasaasay hadda maxaan ku raadayay soo kacaya wax cusub oo dalka ka jiri jirin ku soo kordhinaya kambaniyadaas iyo ideaskaasi hogaanay leeyihiin waa hogaan fiican waa hogaan degdeg loo arkayo waxa uu ka shaqeeyo ama uu qabanayo maxaa noo dhiman hogaankii siyaasadda hogaanka siyaasadda waxaas quruxda badan ee teknolojiyada iyo horumarka oo dhan meel ma gaarayaan meesha la hiigsanaya ma gaarayaan ma noqon yani kambaniyada adduunka u waaweyn qof walba meeshan fadhiya waxa laga yaabaa تلفون آيفون إنه جيب كيس كجرو أما تلفون سامسونج إنه جيب كيس كجرو تلفون كاس آيفون جيب كاو كجرو ماشى سوق صبلون ما أنت أوتيل كان بنان كيسة تكنولوجيا ده يفكر كتكنولوجيا ده تكون صبر دكتين وكله أيو أها تلفون كاس آيفون كا أبل ورنب شركة أبل ماشي كسبلون مليار أو جراش بابور كلو فاميليغا بابورك ماشي ku xareystano garaashka ah miis iyo laba kursi oo taalo ayuu ka soo bilowday maantana meesha mar waa arkaysan kalsooni buuxda qaba waxaad maanta meesha ku soo bandhigteen maalina imaanaysa ay sidaas oo kale adduunka meel kasta ay gaaraan bas ku adkaysi iyo daba joogis iyo dedication iyo maxaan ku raadayay full time looga shaqeeyo lagu fakaro cawada adoo jifto qofku inuu soo kaco بحق وأنبوق يقالن كسوق وقرا ما حنكر هذا أصلا ملك ستاج فكرته كسر دعينه وركع يعني واسيدا سا وحمانه والبا ماشي أنا نجونا معك زور حصار مركب مدة سياسة مدة سياسة ولا قال يابا ربوت كاس لسميه الدقائق محوها قفكا مقايدي مذي أنت ضرب هذا كيتشن كتر راشين كسوق هذا أوكي ما أنت هل كان الوقت الصي oo kale inaan u muuqanaan laga yaabaa siyaasadda muddadaas kooban ee robotkas lagu sameeyay inaan siyaasadda lagu sameeyo lagu fix gareynaa laga yaabaa sababtu waa maxay siyaasaddu waxay qosaysaa waa dad siyaasaddu waxay qosaysaa waa dad dadkuna maskaxyo kala duwan fikirro kala duwan aragtiyo kala duwan dareenno kala duwan rabitaanno kala duwan maxaan ku raraa cabsi kala duwan wax badan uu leeyahay waxaas in la isku soo hagaajiyo la isku soo wajo hal dhinac laga dhigo la dhaqaajiyo oo dhinacaas loo wada dhaqaaqo hawl aad iyo aad u culus u dhib badan oo u baahan hal abuur dheeri ah oo zaa'ida weliba oo aan ahayn mid simple oo laba lagu daray waa afar muxuu ahay ma aha siyaasaddii marka iyo dhalinyaradii adduunyada isbedel kasta oo siyaasadeed oo dhaca hadduu mid wanaagsan yahay iyo hadduu mid xun yahayba dhalinyara keento horta dhowr maroo hore oo horena waa ka dhawaajiyey dalkeenna burburkii ka dhacay wada cali oo 80 jir ah iyo maama caasho oo maxaan ku iraahdaayay 90 jir ah ma samaynin Soomaanan arag lamana arkayo cidna tusi karto oo waa idinka dhuntaatana dhihi kara male maama 80 jir ama 90 jir oo qorba suuka xambaarsan ma arkeen oday sidoo kale 80 jir ah oo baabuur muxuu ahay teknika saaran xabad ridayo ma arkeen waxaan aragnaa xabad la ridayo qarax la tuurayo dagaal la waxaynayo guryo la duminayo dad la waxaynayo horeydii hore aan soo marnay kulli dhalinyaro ahay maantana waxaan arkaynaa ee dhismaha leh ee wanaagga leh ee amniga leh ee xurmada iyo karaamada bini aadamka leh ee soo noqoshada iyo soo kabashada dalka leh waxa ku howlan aan arkaynaana waa dhalinyaro fiiri mindida
waxaa loo isticmaali karaa in lagu xalaashaysto neef xoolo ah oo bakti lahaa oo hilibkiisa aan la cuni lahayn in hilibkiisa la cuno in lagu suurtageliyaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa mindida adoo wax cunaya inaad ku goosato waxaa loo isticmaalaa adeega dhan xarig ku gooso kan ku habayso wax badan inay kuu fududayso ninka fiican gabadha fiican isticmaalka iyo faa'iidada midida u leedahay waa taa midiyey aniga qofka fiican basaad midi u ahay kan xun uma ihi ma dhahayso kii xumaay qaado qofkan ku dhufo halowda ka geli kan ku maxaa lugooy xagga ka dhac balaayo kalma lagu samayn karaa dhallinyarada marka xooggaas wax dumiyana waa tahay xooggaas wax dhisana waa tahay labadaba yaa keena siyaasaddaa keenta